وكلن جوكتا دقن دبلوماسياديد إن وزارة arrimaha dibadda dal ay u warbixiso diblomaasiyiinta dalkeeda jooga adigu markii mid la joogaba uga waranto dalka xaaladaha ka jira iyada xoogaa loo ah oo codka dawladda la maqlo marka wuxuu ku saabsanaa inaan la socodsiino xaaladda dalku marayo dhan siyaasadeed dhanka dhaqaale covidkii inaan siino maaragtay macluumaad sax ah oo first handia oo ka imaanaysa dadkii xoogaalka ahaa beesha caalamku war ay ka soo saartay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya waxa ay ku sheegtay in doorasho hal dhinac ay wataan aan la aqbali doonin noocay doonta ahaatee marka ka dawlad ahaan hadalkaasi sideed u aragtaan waxaan aragnaa hadal sax ah oo waafaqsan mowqifka dawladda Soomaaliyeed xukuumadda Soomaaliyeed waxay ka shaqaysaa sidii doorashada dhacaysa u ahaanayso mid sharci ah waafaqsan wada tashi iyo isafgaradka madaxda ummadda Soomaaliyeed marka dawladdu ma wada hadda dadaaladii dhinacyadoo dhan uga qayb gelin lahayd doorasho loo dhan yahay oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ku qanacsan yihiin xukuumadda Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliya oo hogaaminaya madaxweynuhu sidaad ka aragteen kulankii dhuusamareeb lagu kulmay waxay ka shaqaynaysaa sidii doorasho dadka Soomaaliyeed raalli ka yahay oo loo dhan yahay loo qaban lahaa ay dalka uga dhici lahayd oo dalka horumarka uu soo gaaray oo shaqo badan ay gashay oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan gacan ka geysatay oo xukuumadihii kala duwanaa ee dalka soo jiray ee talaba ay wax soo qabanaysay ku soo daraysay inuu horumarkaas socdo ayaa ka dhaba kala go'an xukuumadda iyo dawladda Soomaaliya toddobaadkan Maraykanku waxa uu si adag uga hor yimid xilka qaadistii ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre dhinaca kalena waxa ay sheegeen in ay la xisaabtamayaan qaswadayaal ay sheegeen inay arrimaha ku lug lahaayeen marka yaa loola jeedaa qaswadayaashaasi sidee soo aragtaan hadalka hadal Maraykanku yiri baa noo sheegtaan qaswadayaal ma aragno Maraykanka nafteedu qaswadayaal ma dhihin baa aragnaa waxay yiraahdeen qoladii qaswada waa arkay aniguba statementigooda hadday jirtay dheen qolada qaswada laakiin arrinta warkeeda waxaa soo gabagabeeyay markii ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo aniga aragtidayda ra'iisul wasaaraha ugu fiicnaa oo dalka soo mara timidahayd markuu si sharaf leh uu aqbalay go'aankii baarlamaanka taas ayaa soo afjartay warqadaas ama statementigaas ka soo baxay Maraykanka hadalkaasi waa hadal baasi ah hadal gudbay wey sidoo kale midowga Yurub iyo Sweden waxay si adag uga hadleen arrimaha hadda Soomaaliya ka socda marka cidda lala hadlayo soo adinka ma ahan dawladaha sheeye oo tilmaamaysi waa dalal saaxiib ah waa dalalkii garab taagnaa ummadda Soomaaliyeed waa dalalkii horumarka aan gaarayno qayb ka aha marka talooyinkooda waanu soo dhaweynaa dabcan dadka Soomaaliyeed ee madaxdooduba in wax loo yeeriyo oo caado ma aha inay aqbalaan laakiin talooyinka dadka saaxiibada tihiin waad ka faa'iidaystaa waxaad ka barataa aniguna waxaan ku sheegay hadda hadallada soo baxay oo dhan kadib hadda dhowr daqiiqo ka hor wareysigan ku bilownay inaan la hadlayay beesha caalamka dadka Soomaaliya u matala ka mid yihiin Sweden-ka iyo Ingiriiska iyo kulligood ana kala hadlay xaaladda jirta ana u xaqiijiyay in madaxweynaha iyo dawladda Soomaaliya xukuumadda Soomaaliya ay ka go'an tahay in dalku hore u socdo oo dadka Soomaaliyeed wada tashado iswaafaqo oo hoggaankiisuna uu doonayo in horumarku sii socdo